si loo helo boqorka xiga ee dhaxalka leh kaas oo ah Ardar. Shrek wuxuu go'aansaday inuu safar u galo si uu u soo helo saaxiibadiisana waxay rabeen inay la socdaan, sidaa darteed dameer wuxuu si dhib badan xaaskiisa maska duulaha uga codsaday fasax dhowr maalmood ah. Hawelwelin ayuu ku yiri maalin walba fariin baan ku soo diri doonaa. Intaa kadib wuxuu u jeestay carruurtiisii oo uu si diiran ula dardarmay. Laba mid kala dooro xaliimo ama faqiirnimo kula nooloo xaajiga ama 100 bilyan qaado oo ha lagula guursado xaliimo kale oo taajirnimo ku noolaada. Maadaama xagaagii soo dhow yahay wuxuu uga digay inaysan marnaba aadin webiga si ay u dabaashaan sababtoo ah waa meel aad u halis badan. Dhanka kale bisadii kabaha dheer lahayd waxaa sagootinayay saaxiibadiis oo dhan. Wuxuu mid ka mid ah ku yiri waa ayaha dabayshiisa oo iqaadaysa laakiin marnaba kuma ilaawi doono. Waxaa tahay jacaylka noloshayda. Markii uu intaas yiri waxa soo ag istaagtay mid kale wuxuuna ku yiri ha adigana sidoo kale. Waxaa meeshii isugu yimid bisado aad u fara badan. Wuxuu si dib leh u yiri adiga iyo adigana sidoo kale. Dabcan markii uu ku wareeray wuxuu ku yiri waa inaan iska tago hadda. Isla markii Shrek iyo saaxiibadiis ay saarnayeen markabka si ay u baxaan, amiirad Fiona ayaa u soo oroday iyadoo u si dawar farxad leh. Waxay ku dhawaaqday aniga. Shrek wuxuu u qaatay inay leedahay waan ku jeclahay, wuuna ugu jawaabay hahaha anigana waan ku jeclahay gacaliso. Maya waxaan rabaa inaan ku sheego, laakiin codkeeda waxaa daboolay buunka markabka oo dhawaaqay. Maxaa tiri ayuu Shrek weydiiyey. Fiona ayaa ku qaylisay waxaan leeyahay uur baan leeyahay. Dhammaan dadkii meesha joogay way ku farxeen warkaas, laakiin Shrek markii uu warkaas maqlay uma muuqan mid ku faraxsan. Waxaa ku dhacay welwelka aabanimada ka horeeya maskaxdiisa. Wuxuu bilaabay inuu maleeyo in carruurtu ay noqon doonaan kuwa isaga ka cabsi badan. Wuxuu ku riyooday isagoo ay hareereeyeen boqolaal carruur ah oo bahalo yaryar ah. Isagoo riyadii ku jira ayuu ka cararay. Wuxuu qiyaasayay dhibaatada iyo adkaanta ay leedahay in bahal uu koriyo ilmo yar. Intii uu riyada ku jiray markii uu mid kor u qaaday waxa meesha ka soo muuqday mid kale oo dhulka ku soo socda. Wax yar kadib waxaa ku soo boorsamay carruur aad u badan oo aabahood ku soo yaacaya. Waxay ku noqdeen culays uusan xamili karin, neeftana way ku celiyeen. Shrek ayaa si xoog leh u qayliyey wuxuuna ka soo toosay riyadii uu ku jiray. Waxa uu ogaaday in ay ahayd riyo cabsi badan. Waxa uu dib u xasuustay wixii dhacay isagoo sagootiyay xaaskiisa Fiona oo uurka lahayd.